dadkeenu ma dhoohayahay miyaan dhaayaheennu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay siday u dhammaynayaan dhallaankiiyo hooyadood waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay marqura dhiidhiyo kacay wixii dhiglahow kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhalinyarooy kacay anigu oo ah faarax maxamed cabdilaahi oo ku magac dheer faarax dalab oo ku nool waddanka Ingiriiska maanta ay bishu tahay 7 bishii 6 2018 waxaan magaalada London isugu nimi shir jaraa'id inaanu ku qabanno annagoo ah jaaliyadda jaamac siyaad ee Ingiriiska waxaana shirkayaga jaraa'id uu daaran yahay arrimo badan oo dhulkii maanta ka taagan oo aad xasaas u ah arrimahaas oo ay ugu weyn yihiin dagaalkan hadda taagan ee ka socda Tukarraq inaanu fikirkayaga iyo wixii aanu qabno aanu sheegno wixii tala aanu bixinayno aanu gudbino fariimo inaanu dirno fariimahaas oo ku socda dadka jaaliyad dadka ka soo jeeda jaamac siyaad oo gudihii jooga iyo dibaddaba waxa uu shirkan jaraa'id daaran yahay inaanu cadeyno mowqifkayaga oo ugu weeyahay mabda ahaan inaanu nahay dad Soomaaliyeed oo aaminsan midnimada Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed iyo xornimadii la qaatay 1960 oo Union Act-gii midnimadii waqooyiga 16 Juun koonfurtana 1 Luulyo la isu yimi dawlad lagu noqday sidaas inaanu nahay dad arrinta asal u ah inaanu nahay dad ka soo jeeda dadkii halganka iyo daraawiishtii hadday noqon lahayd hadday SYS noqon lahayd dadka midnimada iyo ka soo jeeda inaanu nahay inaanay jirin wax heshiisa ama wax haba yaraatee meel isla dhigid ah oo dadkan iyo groupkan jeegaantu ay haba yaraatee ay meel maaragtay ay wax u yaaliin wax sharci oo haba yaraatee meel u yaala inaanay jirin inaanu aragno dadkaas inay yihiin dad soo duulay oo si bareero oo qaawan ugu soo duulay dhulka daraawiishta ee barakaysan inaanay qarinayn oo ay idaacadaha ka sheegayaan oo ay leeyihiin dhulkan Ingiriis baa nooga tagay annaguna aanu nahay dadkii Ingiriiska kula dagaalamay waxaan marka ummadda Soomaaliyeed iyo dadka aanu ka soo jeedno aanu u sheegaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arrintan inay tahay arrin Soomaali oo dhan u taala arrintan inay tahay arrin mabda ah oo la isku hayo arrin sharciye iyo arrin qeyr sharciya arrinta sharciga inay tahay arrintii Soomaali meel dhigatay oo aanay jirin xuduud Soomaali u dhaxeeya dhexdeeda Soomaaliyana ay xuduud la leedahay wadamada Itoobiya iyo Kenya iyo Djibouti dhanka biyahana ay kala leedahay Yemen arrintaas marka inay tahay arrin sharciya oo United Nations ku hayo ummadda Soomaaliyeedna ay maaragtay ay aaminsan tahay marka arrintan waxaanu cadeynaynaa horta marka hore nimankaas inay gardaran yihiin inay dhulka ku soo duuleen in ay si bareera oo aan Soomaali dhaqankeeda ahayn ay u dhaqmayaan oo ummadda ay maaragtay dhulkeedii ay dhibaato uga wadaan in aanay jirin dood kale oo Soomaalidu qabto oo meel gumaysi la leeyahay reference laga dhiganayo oo la leeyahay gumaysi baa dhulka nooga tagay Soomaalidu markaad Soomaalida eegto ama koonfur ha joogeen ama waqooyi cid dooda qabtaa ma jirto cidda kaliya oo dooda qabta waa nimanka jeegaanta oo le waxa dhulkan Ingiriis baa nooga tagay waxaynu ognahay Ingiriisku
dhul badan oo Afrika ah wadamo badan inuu ka kacay 60kii sanadkii ugu badnaa oo sanadka xorriyadda loo yaqaano inaanay jirin dawlad ama dad maanta qiil ka dhiganaya gumaysiba ama ku faanaya inaanu jirin waxaan marka leenahay arrintaas waa khalad waa gardarracad waxa weeye arrinta ayaanu shirka jaraa'id u qabanay waxaanu kale oo halkan ka taageeraynaa ciidamada daraawiishta Puntland oo runtii ah rag lagu faano oo qiimo badan muujiyayna dadaal weyn iyo raganimo iyo geesinimo wixii dhintay waa u ducaynaynaa Allah u naxariistaan leenahay waxaanuna Ilaahay uga baryaynaa guusha in Allah siiyo iyagaanu taageeraynaa aad u taageeraynaa waxaanu halkan markaan u soo noqdo beelahaan beesha jaansi haddaanu nahay aanu ka cadeynaynaa inaanan wax kalsooni ah oo aanu siinayno dadka annaga beel ahaan ka soo jeeda ciidan ka jeegaanta ka dhinac dagaalamaya waxaanu aragnaa dad khaldamay waxaanu aragnaa dad meel ka dhacay waxaanu aragnaa dad aan wax qiil haysan waxaanu leenahay caruurta meesha in lagu laayo waanu ka soo horjeednaa caruurtaas waxay calool galeen hadda ka hor aabayaashood ayaa dagaal ku dhintay kuwii maalinta calool galay weeyo kuwan maanta la leynayo oo dagaalka la soo galiyay waxaan leenahay waa khalad arrintaas waa khalad waxaan fariin u dirayaa dhammaan jaamacsiyaad meel joogaba waa inay arrintaas shir jaraa'id ka soo saaraan jaaliyadaha dibadaha ee jaamacsiyaad waa inuu mowqif cad ka qaata arrinta oo aan laba ahayn oo toosa arrintaas waa arrin aanu leenahay ma qabno fikradda in dadka dhalinyarada ah dhibaatadaas taagan la gelinayo waanu ka soo horjeednaa mana raacsanin mana raaci doonno taasi waxay khusaysaa fariintaasi dadka dhalinyarada ah ee meeshaas aan waxba ka oolin waliba ka dhinac dagaalamaya dad aanay isku mabaadi ahayn dad aanay shaqo isku lahayn waxaanu cadeynaynaa dadka yaryar ee dhalinyarada ah inay dad Soomaaliyeed yihiin inay fikir Soomaaliyeed ku dhasheen oo ku barbaareen inay taariikh Soomaaliyeed leeyihiin inay dad asal ahaan daraawiish inay yihiin inaanay waxan jeegaantu wadata aanay marnaba shaqo ku lahayn ayaanu cadeynaynaa laakiin dad la khalday ay yihiin marka waxaanu leenahay waa u ducaynaynaa in dadkaas Ilaahay xaq tuso kuwa ee isla beesha ana waxaan leenahay in ay faraha kala baxaan baan u sheegaynaa annagu waanu gaarsiinaynaa si kor iyo hoos aan ugu sheegaynaa waxaan halkan ka cadeynaynaa in arrinta mabda'a in aanay 4 qof iyo 5 qof dadkan aanay ku khasbi karin mabda' khaldan oo mabda'a jeegaanta ah ayaanu halkan ka cadeynaynaa waxa weeye dadkani waa dadka aanu sheegnay meesha ka soo jeedaan cidda ay yihiin inay Soomaali yihiin inay halka ku abtirsadaan waxaanu marka leenahay arrinta iyada ah gobolada Sool iyo Sanaag caburinta lagu hayo iyo dhibaatada lagu hayo waxaanu aragnaa arrin aan sii socon doonin sharafta iyo gobonnimaduna inay imanayso cidda halkaas maanta dadka ku dhibaysaana in aanay ujeedadeedu u fuli doonin ee rabitaanka dadka iyo dadku wuxuu raba ay noqonayso dadkaasi waa dad freedomkeedu u dagaalamaya wayna gaarayaan ujeedadooda qofka dhulka iskale baana yeelanaya dhulka lamana khasbi karo lagumana khasbi karo mabda' uusan qabin isagu qabin awowgiisii kala qabin dadkaas waa dad Soomaaliyeed arrintaanu shirka u qabanay waa taas weeye waana idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Cabdilaahi Maxamed Xaaji Maxamuud Goolle waxaan ku noolahay waddankan Ingiriiska halkan jaaliyadda London ayaan ka mid ahay waxaan filayaa in introduction-kii uu bixiyay Faarax 3 qodob ayaan halkan aanu isdul taagi doonaa haddii Ilaahay idmo qodobka ugu horeeya waxa weeye waa jaaliyadda jaamacsi waxa weeye reerka la jaamacsiyaad ayay khusaysaa kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba waa baaq
daba socda baaqii cuqaasha jaamac siyaad ay mar hore ka hadleen shir jaraa'idkii ay qabteen ee ay kaga hadlayeen colaadda ka soo cusboonaatay gobolka Sool magaalada Tukaraq iyo nawaaxigeeda waxaa jiray inay cuqaashu arrintaas iyada ka hadashay cuqaasha waxaa u weyn ninka la yiraahdo Axmed Cabdigaas Cawke Axmed Hoolif ninka hadlaya waa Axmed Cabdigaas Hoolif dad leh oo diin leh oo dadnimadooda adduun weynaha laga yaqaan oo magaca la yidhaahdo ku tirsan ama ka dhashayba daarood dhul ballaadhan oo adduun weynaha laga yaqaano degan taleex ilaa dunkuqooq ilaa meesha la yidhaahdo maxay ahayd dannood iyo wixii la xidhiidha ilaa meesha la yidhaahdo ceegsaar dalka intaa leegay aan soo sheegay taariikhdiisana la yaqaano maduhuna yaqaaniin dhulkana maaman buu leeyahay adduun weynaa laga yaqaan waxaa dhacday in niman yidhaaheen la yidhaahaa isaaq annagaa leh macadadka macadalka mana aha lama la lahaa mana nihin waxay ma wadaagno lamana wadaagaan dalka yaga waxaa ka dhacayana wax aanu ku leenahay ma jiro nimanaan ilaahna ka yaabayn aqoonnina celinayn ayaad moodaa in sidii kuubaankii beri la sheegi jiray caloosha u shaqaystaha ahaa dad magaca dhulbahanta ah la kiraystay waxyaabo badan oo aanan raalli ka ahayn oo la wadaagin oo la qabin ayay samaynayaan waxaanu leenahay xaaladdaa dembiga halkaa yaal iyo afduubka halkaa yaal iyo dhaqan xumada halkaa taal iyo maagga iyo maroorsiga adduun weynaha waxaanu doonaynaa waxaanu leenahay hayooy baanu leenahay waxaa noo weheliya nimaanu nahay waa la yaqaan dalka niman kale waa la yaqaan madaxdooda iyo manjahoodana waxaanu faraynaa war haddii nala dilay oo nala dulmay idinmee meeyey idinmee tollaayey baanu leenahay haddaannu jaaliyadda dibadda nahay aniguoo magaca jaaliyadda ku hadlaya magacayguna yahay cabdilaahi maxamed goolle waxa aanu taageersanna oo si biyo kama dhicmaana u taageersanna oo aanu ku garab taagannahay cuqaasha jaamaca siyaad war saxaafadeedkii ay ka soo saareen iyo hadalkii ay kaga hadleen magaalada Laascaanood ayaanu taageersannahay waxaanu taageersannahay jaamac siyaad inay yihiin dad dhulbaanta marka dhulbaanta ay ka tagaan ay yihiin dad hartiya marka harti laga tagan ay yihiin dad daarooda jaamac siyaad ma noqon karaan qabiil ayan ahayn waxaa jirta dad la khalday oo maamulka waqooyi galbeed ay ku khaldeen lacag ama fikir khaldan iyagoo adeegsanaya dad beeshaa ka soo jeeda dad ka mida haddaanu jaamac siyaad nahay 99% waanu ka soo horjeednaa arrintaa dadkaa la khalday iyo dadka khaldaya intaba waxaanu caddaynaynaa inayan metelin jaamac siyaad dadkaasi kuwa qoriga loo dhiibay ee la yidhi soo laaya oo ku dagaalama Tukaraq oo harti laaya raalli kama nihin naga mid ma aanaan dirsan nooma joogaan ma taageersan waanu ka soo horjeednaa waxaanu aad iyo aad uga xunnahay boqolkiiba boqol ka xunnahay arrintii ka dhacday labadii dagaal ee isxigay kii dambe ka dhacday meesha la yiraahdo Tukaraq in dad dhalinyaro waan aqoontoodu ku fillaay
oo tababar qabin oo wax allaale iyo wax loo sheegay aynan jirin oo hub iyo maxay ahay training iyo tusmo midna aan qabin in loogu horreysiyada front line kala dhigay iyadoo oo lagu khaldayo lacag waxaan wiilashaaleeya fariintaan u dirayaa waxaa weeye adduun waa la helaa qofka irsiqiisa ilaahay baa qoray waxa uu cunayo ama uu calfanayo haddii ilaahay u calfay ma seegayo ma gefayo wuu helaya walaalayaal waxaan idinka codsanayaa oon idin leeyahay iskaga baxa dagaalka waa dagaal xaq darro ma aha dadkiina inaad laysaan nin Hargeysa ka yimi iyo inta ka shishaysa inaad la dhimataan isgarab taagtaan waxa weeye waa arrin aad khaldan wax guulo aad ka gaaraysan ma jirto taasaan ku soo gabagabeynaya يعني باقي وحود دارن إن كسو هرشيدنو لا فكرنا هاي عقاشة وهالرأيو أما وين يهاي مانتا أحمد عبد الكاس عوكي تعال كاسن كبحيا وقلبك هالكاسن كبحيا وحان كلا قدرة يا وكل فاقية جامع السياد عقاشة إن درجتك هوانك إلى الله العدة خصيص وما يسيج كي مقرأ وركسارة oo u guntada oo ka saara wiilasha dagaalka xaq darii la gelinay ee lagu leeyna taasi waa ka haray halkaas aan uga baxay talabaad waxay dadku isku khaldeen dhalashada dadkan ka yimi waqooyi waa reer Sheekh Isxaaq ciday yihiin way yaqaaniin uma sheegi karaan dhul bahante ama kuma khasbi karaan cidayanahay dhul bahanta waa daaro waa harti halkaas ay ku nool yihiin cid kuma duulin cid dhulkoodii kuma haystaan waxa weeye reer Sheekh Isxaaq waxay ku soo duuleen khalad waa arrin khaldan oo xaq darra waa ka soo horjeednaa mana doonayno inaanu isku dhimanno alhood hadduu allaya oo ay diinta islaamka haystaan waa bil rabadaan dhiigoodana ha badbaadsadeen kayagana ha badbaadeen ha ku noqdeen dhulkoodii waxaan kaloo taa halkaasaan ku dhaafay ta saddexaad waxaa jira dad dhulbaanta ah oo ka dhigtay human shield interestiga gaarka ay leeyihiin inay dadkii dhulbaanta ikhtiyaar kaga qaadaan oo ay interestigooda ku hadheeyaan ama ay ku afduubaan dantii iyo muxuu ahaaye waxa loogu yeedhay dantii guuda dhulbaante sharaftii dhulbaante qabiilnimadii dhulbaante intaba ay ku abuse gareeyeen waa abuse dadkaas interestiga gaarka ah wata ama ganacsi ha u gal ama darajo ha u gal war islaam haddaad tihiin waadna dhibteen ilaahay waxaan ilaahay idinka baraynaa in ilaahay iimaanka idinku jaliso laakiin arka waxaad samaynaysaa inay khalad yihiin la idinkalana xisaabtamayo aakhiro waa laydin weydiinayaa ifkana la dhammaan maayo dhulbaanta wuu noolaanayaa dhibkanu ku jirana wuu ka baxayaa waana la xisaabtamaya waa ka baxaya asalaamu calaykum wabarakaatu aniga magacay waxaa la yahay yuusuf xaaji musaxiir waxaan ahay jaaliyadda ingiriiska joogta anigu hadalkii odayadaasaa dhameeyey intaa wax ka bedelanoo hadda aan ku darayaa waxaan keliya hor rabaa inaan sheego nimayahow nimankaa dhulbahante ee maamulkaas Somaliland la socda muddo yar kuma aydan ceeshayn inaad dadkaa dhibaataysaan oo aad jeebkiina uun maaragtay aad ku xisaabtantaan oo dadku wax ayan rabin oo ayan doonayn oo aydan idin dirsan oo aydan idin dooran in aad idinku jeebkiina uun maaragtay aad ku xisaabtantaan oo dadkii ku qasabtaan arrintaasi aad iyo aad bay nasiib darro u tahay warnimayo muddo badan baa dadka dhibaysayna dadka iska daaya oo dadka madaxooda u dhiga guud ahaan ragga dhulbaanta oo dhan baan u sheegaya arrintaas mid waliba waa la ordayaa kiish lacagi ku jirtuu la ordayaa tuulooyinka la ordayaa dadka maxagarastada gaajaysan u geynayaa la ordayaa
warnimayow dadkaa maxaastaaniyo dadkaa iska daaya wiilal yarar baa la soo qasbaya guryahoodii laga soo kaxiyo dagaalka la soo geliyay ka loo dirayay la leeyahay dil waa walaalkii waa adeerkii waa in adeerkii waa seedigii waa walaashii ka dhashay furinta la soo geliyay warnimayow dhibka inta ka badan nimayow hanoo geysanina dhibka ka daayo oo maruun xishooda oo maruun bil fakara oo waxa tiraahdo war dadka waxan meenu ku khasbayno waxan ma saxba ama waa qalad aad baan idin salaamaya dadka daawanaya message-kan waan idin salaamaya khayr baan idin rajeen anigu message-kaygu intaas ku koobayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabduqaadir Axmed Xaaji Cumar waxaan kamid ahay jaaliyada UK beesha Shaacsiyaad kulli hadalkii waa la dhimay odayaashii baa hadlay hadalka nuxurkiisa iyo xikmadiisa odayaashii baa yiri Soomaalidu waxay tiraahdaa waayeel kurkii waa wada indho waxa maanta deegaankii dadku deganaa ka dhacay waa la og yahay waa laga wada warhayaa Soomaalidu waxay kaloo tiraahdaa rag aamusay iyo riya aamusay reerkoodii gabe anu waxaan maleynayaa waqtigii laga hadli lahaa way soo dhaaftay hakrasho badan baa jirta dadkuna inay hamradaan wax ka fool xun ma jiro anigu laba kelmadood baan halkan ka oranayaa qodob waxaan oranayaa inamada yaryar ee xaabada lagu shidayo ee $50 iyo shubka bariiska shubka raashinka ku dhimanaya baan fariin uga diray halkan waxaan u maleynayaa inay tusaale idinku filan tahay kuwii dhintay hooyada dhaawaca babinaysa kii dhaawacmay babinaysa ee isbitaalka ku babinaysa inay 10 ku qaataan baan anigu oran lahaa waxa weeye siyaabo kale loo noolaadaa jira wuu shaqaysan karaa laakiin xabad in lagu dhigo anu taawrta fariintaas aanu diray odayaashii dhalay waalidiintii siiba hooyooyinka oo hooyada uurka ku qaaday ilmaha ee 9 bilood caloosha ku siday ee foolatay ayaa garan karta laakiin wax garadka meesha joogay odayaasha waxaanu leenahay aray hawsha wax ka qabto wax idinku soo noqonaya weeye wax la saashin kara ma taawrta anu fariintaas aan diray waxa leeyahay namada yaryar daan iyagu waxba garanayn dad baa aqal u ah dadka aqalga u ah hal hadleen mid kalena fariin kale waxaan u dirayaa waxa lagu dagaalamaya hadii la isweydiiyo waa colonial mentality aniga raayigayga colonial mentality-na waa wax laga soo gudbay soo dhamaaday wax hirgelayana ma bini'aadamka waxa ugu xun markay hindiso waxaan hirgelin qofku haduu hindiso waa waxa ugu xun qofku bini'aadamka inuu hindiso waxaan hirgelin colonial mentality-gi dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunyada loo qaybiyay waxba ka dambeeyay dadka Soomaalidu waa midoobeen nidaam bay samaysteen dawlad baa la noqday war wuxuu haduu hirgelayo waa lagu dagaalamo waa lagu dhintaa laakiin waxaan hirgelaynin oo colonial mentality oo laga tagay in lagu dagaalamo ma dad loo laaya ma tusaale waxa kugu filan magaalada Taleex la yiraahdo waqtigii daraawiishta diyaaradii lagu duqeeyay dad baa tuurta ku soo qaaday magaalada Berbera marka baa keenay laakiin ilaa Burco dad baa tuurta ku soo qaaday oo awr ku soo qaaday dadkii ku soo qaaday iyagoo mentality markii qaba ayaa hadeer waxa la sii leenayaa dad loo leenayaa fikrad mentality oo colonialkii u ka tagay warintaasi hirgeli mayso waxa la rabaa in aqalka laga shaqaysiyo oo ummaddu ay dib u fikirto assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dadkeenu ma doohayahay miyaan dhaayaheenu arag dhagarta laynagu waadiyo cadowga dhexdeenan degay siday u dhammaynayaan dhallaankiiyo hooyadood waxaa lama dhowran kare dhawaaqa maqloo kacay maqla dhiidhiyo kacay wixii dhiiglahoo kacay damiirku intaanu dhiman dhulkeenna difaacane dhalinyarooy kacay